أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ودرسيني أفرتن الشنات وكتاب كيني نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عشر كينو حكب لابنا يا غزوة بني النضير. halkaas ayuu ka bilaabanayaa. qaswadaasi oo dhacday sanadii afaraad, maadaama aan ku jirno macnaha waxyaabihii dhacay sanadii afaraad oo hijriyada. qaswatu bani nadiiri, reer banu nadiir duulaankii lagu qaaday. haadaa maxaluhaa wa mabxathuhaa, halkan ayaa looga hadlayaa oo lagu falanqeynayaa. markaasi hore waxaan usoo qaadanay yahuuddu bani qurayda iyo banu nadiir iyo bani qaynuqaac, saddexdaas inay ahaayeen saddexdaa qabiilo waaweyn. kuwa ugu weynaa oo bani qaynuqaac, ballan waxaa jirtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam yahuuddan markay magaalada madiine soo degeen nabiga uu la galay, oo ah qolo walbo qolada kale in nabad lagu wada joogo, qofna aysan qofka kale ku xadgudbin, wixii cadowgoo kor uga yimaadana inay dhanka noqdaan. saasay ku ballameen. ballantii marka waxaa ka baxay niman la yidhaha bani qaynuqaac. sanadii saddexaad oo hijriyadii ayaa markaasi magaalada laga qixiyey oo laga raray oo laga eriyey. hadda sanadii afaraad haddana waxaa ballantii haddana ka baxay banu nadiir. ayagana haddaan arkaynaa sidii markaasi loola tacaamulay. kuwan kaloo markaasi bani quraydana way naga horeeyaanoo sanada shanaad aakhirkeeda meelahaasaan ku arki doonaa insha allah. yaa lallaahi maa aswaca caaqibata dayshi, faqad takuunu lummatu murtaaxata albaali haadi'ata alkhawaatiri, xataa taquuma jamaacatu min ru'asaa'iha bicamali qadrin yadunnuuna min waraa'ihi الnajaaxa fayajlubu calayhim الshuruura wayushatituhum min diyaarihim. yaa lallaahi, ilaahayow, agisnaa, noo gargaar. yaa lallaahi, ilaahayow, waa sidaas. yaa lallaahi, ilaahayow, agisnaa, noo gargaar. maa aswa'a, maxaa xumaan badiyey, caaqibata dayshi, fudaydka ciribtiisa maxaa xumaan badiyey. waa yaabe. maa aswa'a, maxaa xumaan badiyey, caaqibata dayshi, fudaydka ciribtiisa maxaa xumaan badiyey. faqad takuunu lummatu, ummaddu inay ahaataa la arkaa, murtaaxata albaali, qalbigeeda miduu faraxsan yahay, haadi'ata alkhawaatiri, dareenyaalkeedana uu degan yahay, xataa taquuma jamaacatun, koox ilaa ay samayso, kooxdaasoo min ru'asaa'ihaa, jamaacadaas madaxdeeda ka mid a, bicamali qadrin, dhagar camalkeeda ay samayso. camalkaa dhagarta ahoo yadunnuuna ay malaynayaan annajaaxa, guul, min waraa'ihi, camalkaa qadriga ah oo dhagartaa gadaashiisa inay markaasi guul ay ka helayaanne ay u maleeyaan markaas. oo fayajlubu huwa, camalkii qadrigaoo dhagarta ahaa oo usoo jiido calayhim dushooda ashuruura, sharyaal oo usoo jiida waay. oo wayushatitu huwa, camalkaas dhagarta ah ou kala firdhiyo, hum, ummadahaas ou kala firdhiyo, min diyaarihim, guryahoodana uu ka kala firdhiyo waayo, ou barakiciyo.
وهذا أي عمل الغدر دقرتان عمل كذا أي سميين غير بني النضير ما أي الذي كيوا حصل هو ما قاس حصلي ليهود بني النضير غير بني النضير يهود ذي أحصلي حلفاء خزرج بهو داقيالك الله هاوى الذين بنو النضير كاسو كانوا أهايين يجاورون ولا درسه ولقلا معناها المدينة مقالة المدينة مركز فقد كان بينهم معناها أيغا وبين المسلمين تعهود بلما أيا أحد حدودا بلما هاس أو إن بدل قوة الدجنادو إن الله يسكو حد قدبين هدي عدو كر أو كي مادنه إني أمي ذوبان مركز يسكر غيان ساسا يشيسكو فقد كان بينهم يهود أسرار بنو النضير وبين مسلمين تعهود بلما أيا أدحيي عهود سو يأمن أو كو آمن نقنيو بها بسببها عهود سبب كذا أو كو آمن نقنيو كل مثل أركو كو آمن نقنيو كل جاسو منهم أيجا كمدة الآخر متك كلا أوجا آمن نقنيو الآخر ومفعول به أو مركا يأمنوا ده مفعول كذا ومركز ولكن هسيا شيء بنو النضير نمك اللي يراهدو لم يوفوا مؤفن بهذه مؤيسن أوفن تاسو على العهود بالمضى مؤيسن أوفن صوبتي أوفوا أين حيث هاي حسدا لأجل حاسد ما درت هذا أو منهم أيها حق وذا كهذا يهود حاسد ما إسلام كأوقبان درت هذا أي بلنت هسيك أوفن وأيهم واتي إلهي أوبر سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود هذا أغانيسا إلهي أكير النبي الله محمد ذاتك قوة أقول عداوة الدرن مركي مؤمنين الله فيري إن يهود والذين أشركوا إلهي ركوا مشركين تأيغا كحاسين مبضن أو كعداوة مبضن كريشتن كأيغا كعداوة مبضن waxa maanta aan ku arkayna waa ولكن بنو النضير لم يوفوا هسيا شيء بنو النضير لم يوفوا ما يسن أوفين بهذه تنتاسو العهود بلمضى أهوال حسدا لأجل حاسد ما درتد أو منهم حق وذاك هذا وبغيا درتد الظلم واي مركز فبينما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وبعض قار بعض قاسو من أصحابه نبي أصحابتي سكمين في ديار بني النضير غير بني النضير دارهود دحدود أي كسو جيهين مال دجاندود على جواد أمريكاس أي كسو جيهين إذ وقت قاسي ائتمر جماعة كوح وحي قرشيين كوح داسو منهم غير بني النضير كمدة على قتله النبي الدل كيسي قرشيين عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ واحد المد إنه سوقاتنا لجدله ساس هلا هالكاس كتعلوجي بأن يأخذ واحد المد إنه سوقاتنا لجدله واحد كاسو منهم رير بني النضير كمذا صخرة دقح شيد إنه سوقاته عرس أو يلضي أو ريدو ها دقح الشيد عليه رسول كدوشيس وكريدو من علو مكان سريس حقي سنة وجسور ذو ساسي كتشتين ساس أي كتشتين نبي قو مال هو سمرايو إن مال بور إنت الله كرا نجح شيدة لوجسور دول هيدا ساسي كتشتين فضلع عليه الصلاة والسلام نبي قو مركب حال أجيسية معناها الله دالع سية على قصدهم ولا جيدة ريب بني النضير يهوداس ولا جيدة دمع سيهين أيا النبي قال الدالع سي عليه الصلاة والسلام إن هو أحد إلهي لا شقينا قف إلهي لا شقينا عد بقوا جيسان كرت ما جرتوا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إلهي كا دورا إلى ردتك وكا إلى علينا قف دب كل سؤال كرم ملها أو نفس الداد دب بقوا جيسان كرم
aayaddu dabcan waxay ka hadlaysay wixii qatli ah dil oo kale nabiga in nafta laga qaado laakiin dhibaato kale oo yaryaro waa soo gaaraysaa waa ogtahay in daa'if nabiga lagu dhagaxiyey oo xataa dhiig laga keenay in fooshiisii la jabiyey eligtiisa la jabiyey waxyaabahaas oo dhan way dhaceen laakiin dila laga hadlayaa markaas iyo wax culus ilaaha kaa badbaadinayo marka nabiga waa la ogeysiiyey calayhi salaatu wasalaam waa la ogeysiiyey calaa qasdihim ulajeedadooda farajaca marka rasuulka waa soo laabtay watabicahu nabiga waxaa soo raacay asxaabuhu asxaabtiisiina way soo raaceen uma markaa kadib arsala nabiga wuxuu diray lahum banu nadiir nabiga wuxuu u diray muxamed bnu maslamata ayuu u dira waay saxaabigaas ayuu nabiga u diray waana maxamed ibnu maslama waa ninkii dilay kacbu bnu ashraf kacbu bnu ashraf ee aan soo qaadanay ninkii dilay waayo markaasi yahuudda ninkii dagaalkii soo qorsheeyey reer bani qaynuqaac markaa nabiga uu yiri yaa iga kaafinaya kacbu bnu ashraf ninkan uu markaasi si gaatiin ah uu ku dilay maxamed ibnu maslamata uma markaa kadib arsala nabiga wuxuu diray lahum reer banu nadiir wuxuu u diray maxamed ibnu maslamata ayuu u diray yaquulu xaal uu leeyahay lahum ayaga uu ku leeyahay banu nadiir uu ku leeyahay maxamed ibnu maslama ukhrujuu baxa kharaja yakhruju ukhruj macnaha saas waay wamaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu taas macnaha isma lahan akhrijuu waay taas liannahu ficilkaas wuxuu ka yimid akhraja yukhriju ikhraajan marka wuxuu ku imaanayaa ficlu amarkii macnaha afcil ayuu ku imaanayaa min ifcala alamru afcil waczuhu lisiwa si ibnu maalig uu lahaa markaas marka midaan kharaja yakhruju ukhruj sidaasay noqonaysaa marka wuxuu ku yiri marka saxaabigan oo nabiga u diray nimanka yahuudda ah markay arintaas qorsheeyeen dilka ah nabiga wuxuu ku yiri u sheeg magaalada isaga baxaan marka wuxuu ku yiri ukhrujuu baxa min baladi ka baxa beledkayga oo madiina ah ka baxa faqad xaqiiqi hamamtum waxaad hamiseen oo damacdeen bimaa shaygii ayaad damacdeen maagaasoo hamamtum aad damacdeen bihi maaga aad damacdeen waay oo min alqadri dhagar ah idcile alxasmu digtooni kullu lxasmi digtooni dhammaanteed anlaa yatahaawana alinsaanu insaanka waa inuusan fududaysan maca man duul micigiisa inuusan fududaysan mankaasoo curifa la ogaaday minhu manka xaggiisa alqadru dhagar laga ogaaday inaan la fududaysan oo layska ilaalisho waay marka idilxasmudan waa ujeedaa wuxuu kuu saaray qows beyna qowsayn iyuu gelshay wuxuu u geliyey waxaa waaye hadalka rasuulka ka mid maaha idilxasmudan sheekhaa wata markaas idilxasmu kullu lxasmi an laa yatahaawana alinsaanu maca man curifa minhu lqadru intaan waa sheekha hadalkiisa waay markaas nabiga hadalkiisa wuxuu ku egyahay ukhrujuu min baladii faqad hamamtum bimaa hamamtum bihi min alqadri sheekha marka tacliiqu sameeyey markaas idcile alxasmu digtooni waxaa la yidhaahdaa kullu lxasmi digtooni dhammaanteed an laa yatahaawana alinsaanu insaanka inuusan fududaysan maca man duul maciisa uusan fududaysan mankaasoo curifa alqadru dhagar minhu manka xaggiisa laga ogaaday qof mar aada ogaatay inuu ku dhagray oo macnaha ku gaaday dhib kula damcay mar kale inaad aaminta ma aha macnaha waana iska ilaalisa qofkaas fatahaya alqowmu qowmkii markii waa diyaargaroobeen liraxiili geedi ayay u diyaargaroobeen inay magaalada isaga baxaan waay fa arsala lahum banu nadiir ikhwaanahum walaalahaasoo almunaafiquuna ee munaafiqiinta ah ayaa usoo cid diray fariinay usoo fareen yaquuluuna xaal ay leeyihiin munaafiqiinta laa takhrujuu ha bixina yahuudey min diyaarikum guryihiina ha ka bixina wanaxnu annaga munaafiqiin haddaan nahay ayaa macakum idinka la jirkiina waa annagaa idinla jirno oo idin garabkiina ahe magaalada ha ka bixina saasay ku yidhaahdeen waa qaala tacaala marka ilaahay wuxuu yidhi xikaayatan canhum asoo ilaahay xaggooda ka xikaayoonayo nimanka munaafiqiinta ah inay hadalkay leeyihiin ay been tahay waxna aysan ka jirin ayaa ilaahay wuxuu yidhi lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum walaa nudiicu fiikum axada abadaa lain ukhrijtum
laamtaasi waa laamul qasam la in wallaahi in ukhrijum haddii laydin saaro macnaha banu nadiir haddii laydin saaro lanakhrujanna macnaha ayagiyaa waxay leeyihin lain ukhrijum banu nadiir haddii laydin saaro lanakhrujanna annaga baxnee munaafiqiin haddaan nahay oo baxnee macakum micigiinaan baxaynaa macnaha waa idinla baxaynaa walaa nudiicu annaga haddaan munaafiqiin nahay adeeci mayno fiikum fii sha'nikum arrinkiina axadan axad abadan weligeen ku adeeci mayno macnaha dhibkiina iyo in laydin dhibo qof aan ka aqbalayno ma jirto saasay ku yidhaahdeen wain quutiltum haddii laydinla dagaalamo banu nadiir haddaatihiin haddii laydinla dagaalamone lanansurannakum idin hiiline sidaasay yidhaahdeen waa wallaahu ilaahayna yashhadu wuxuu markaati ka yahay oo ka marakacaya innahum munaafiqiin lakaadibuuna kuwa been sheegaya inay yihiin waa hadalkooda uusan waxba ka jirin waxba inaysan ka jirin waa sida kuwa horeba ay usoo lugooyeen aan soo marnay ayay midaanu sidaas ayay la mid tahaa waa ilaaha ka markaati kaca inay been sheegayeen lain ukhrijuu banu nadiir haddii la saaro laa yakhrujuuna munaafiqiin bixi maayaan uu yiri ilaahay subxaanahu watacaala macahum yahuud la bixi maayaan banu nadiir la bixi maayaan walain quutiluu haddii lala dagaalamana laa yansuruunahum munaafiqiin u heelin maayaan walain nasaruuhum macnaha cala alfardi waltaqdiir kaba soo qaad waayo macnaha walain nasaruuhum haddayba u hiiliyaan ay dhacday inay u hiiliyaan munaafiqiin yahuudna layuwallunna jeediyaane al adbaarad dabooyinkay jeedinayaan waay markaas macnaha waa cararaya uma markaa kadibna laa yunsaruuna loo hiilin maayo oo loo gargaari maayo suuratu lxashri ayaa aada uga sheekaysa waa markaasi walaakina alyahuuda hase yeeshee yahuud damicuu way hunguriyeeyeen bihada alwacdi ballanqaadkan munaafiqiintoo beenta ah oo ha guurinoo ha bixina annagaa idinla jirna hunguriyaa ka gala waa wa ta-akharuu waxay kadib dhaceen can iljalaa'i bifatxi ljiim waa sidaas walowlaa an kataba allaahu calayhim iljalaa'a marka waa midaas wa ta-akharuu waxay kadib dhaceen can iljalaa'i macnaha guurid oo magaalada ay isaga guuraan ay meesha ka qaxaan arrintaasay kadib dhaceen fa amara calayhi salaatu wasalaam marka nabiga wuxuu amray bitahayu-i diyaargaroobid liqitaalihim dagaalkooda loo diyaargaroobo inay magaalada isaga baxaan si nabada ku baxaan markay diideen oo munaafiqiin hadalkooda beentaa isku haleeyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam amar wuxuu ku baxshay in loo diyaargaroobo dagaalna lagu qaado falama ijtamaca annaasu micnaha muslimiinta markay kulmeen naaskan hadda dad dhan looma jeeda muslimiinta loo jeedaa falama ijtamaca annaasu muslimiinta markay kulmeen kharaja rasuulka bihim muslimiintii ayuu la baxay wastacmala wuxuuna u isticmaalay oo uga shaqaalo dhigtay waay cala almadiinati magaalada madiino intuu nabiga dagaalka nimankan kula jiro wuxuu usii dhiibtay ibna ummi maktuumin ayuu usii dhiibtay waay markaas cabdullahi ibni ummi maktuum waacdaa raayatahu ou yidhi dadka salaada kasii bixi waayo waacdaa raayatahu calankiisina nabiga wuxuu u dhiibay caliyan sayidinaa cali karama allahu wajhahu ayuu u dhiibta waay amaa banu nadiir reer banu nadiir fataxasanuu waxay ku gaashaanteen fii xusuunihim dhufaysyaalkoodii ayay gaashaan ka dhigteen waayo wadannuu waxay yaqiiniyeen macnaha waxay maleeyeen weliba waa malo oo waxaa la yidhi oo ku dhow martabatul yaqiin inayba gaarto dhufaysyaalkay haystaan ay aada isugu haleynayeen wadannuu marka waxay maleeyeen ay la ahayd 85% annahum ayagu maanicatuhum midda difaacayso inay tahay xusuuntaas min allaahi min ba'sillaahi ilaahay ciqaabtiisana ay ka difaacayso macnaha saasay u maleeyeen faxaasarahum calayhi salaatu wasalaam nabiga marka waa go-doomiyey yahuudii 6 layaalin 6 habeenuu go-doomiyey waa rasuulka iyo saxaabadii la socotay saasaa loo jeedaa 6 maalin ayaa inta laysku hareereeyay go-doon meeshii lagu geliyey uma markaas kadib amara nabiga wuxuu amar ku bixiyey
biqadci nakhiilihim geed timireedyaal badanay magaalada ku lahaayeen yahuudda geedahooda timirta in la jarjaro oo dhulka la dhigo nabiga amar ku baxshay beerihii geedihii timirta ay lahaayeen hala jarjaro uu nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ulajeedada laga damacsan yahay in geedahaas timirta la jarana maxay tahay liyakuuna si uu u ahaada qadcigaas adcaa mid ugu yeerid badan ilaa tasliimihim yahuud isdhiibidooda inay isdhiibaan markii beerihii waaweynaaye lahaayeen dhulka lasoo dhigo bal inay markaas isdhiibaan ay yidhaahdaan bal hala joojiyo arrinta la wado waa isdhiibaynaa arrintaas aa la sameeyey waa nabiga amar ku baxshay calayhi salaatu wasalaam hadda amarkaasu marka hore ilaahay xaggiisu ka yimid sooma waati ilaahay qur-aanka uu ku yidhi maa qadactum min liinatin aw taraktumuuhaa qaa'imatan calaa usuulihaa fa biidni illaah macnaha maa qadactum waxaad goysaan oo min liinatin geed timireed ah aw taraktumuuhaa ama aada iska dhaaftaan qaa'imatan calaa usuulihaa iyadoo jiridaheedii ay kasoo baxda ku taagan fa biidni illaahi arrintaa ilaahay idinkiisii ku ahaatay ilaaha idmo waa markaa in sidaa la sameeyo waxaa laga damacsanyana waxaa waaye inay markaas ayaga qalbi jab ku noqoto haddana ay isdhiibaan ay yidhaahaan yaan la baabi-in marka sidaasaa ilaahay u sameeyey fa biidni illah waliyukhziya alfaasiqiin waliyukhziya alfaasiqiin waliyukhziya alfaasiqiin waxay ku cadfan yahaan ficil meesha maxduufka ah macnaha waxaa waaye kay yasura allaahu lmu'miniina waliyukhziya alfaasiqiin waa sidaas si ilaahay mu'miniinta uga farxiyo faasiqiintana ilaahay oo u hoojiyo waa sidaas saasaa marka loo sameeyo marka faqadafa allaahu ilaahay marka wuxuu ku riday fii quluubihim quluubtooda arrucba argagax walam yarow ma aysan arkin min cabdillaahi bni ubayin ra-iisu lmunaafiqiin cabdullaahi bni ubay ibni salool ma aysan ka arkin musaacadatan wax kaalmo ah ma aysan ka helin waay bal iska dhaafa inuu caawiye khadalahum garabkooda ka baxa waay waa hoojiye kamaa sidii khadala banii qaynuqaac qoladii aan soo marnay sida uu garabkooda uga baxay ayuu kuwaana uga baxa waa min qablihim bani nadiir hortooda ahaayeen waa fasa'aluu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay marka waxay weydiisteen yahuuddii an yujliyahum inuu raro saasay nabiga weydiisteen waa baxaynaa hana la raro gaadiidka waxaan unha nagula caawiyay saasay yidhaaheen wayakufa wa an yakufa inuu ka joogsadana nabiga waa ka codsadeen can dimaa'ihim dhiigyaalkooda hoosan nabiga laynin waaye taasna way ka codsadeen iyo wa anna lahum ayagu yahuud inay u sugnaatay maa ayi ladii kii xamalat ilibilu geela wixii ay qaadaan oo min amwaalihim xoolahooda ay ka qaadaanne in la siiyo macnaha geelan macnaha wixii uu noo qaadana aan qaadano nabiga marka calayhi salaatu wasalaam si suuratulxashri ilaahay uu ku faahfaahiyey culamada mufasiriinta ay ku faahfaahiyeen wuxuu sameeyey saddexdii qoysba nabiga hal ratiyaa idiin ogolaho halkaas rati wax allaale wuxuu idiin qaado ama dahab saara ama lacag keliya ku rara ama dhar kala saarta idinka idiin taalla saddexdii qoys hal ratiyaan ogolay sidaasaa marka magaaladii wax kaloo hanti badanay lahaayeen marka hantidooda aaday u badneed waxa kale muslimiinta uga tegaysaa nuuri nabiga calayhi salaatu wasalaam intaasaa marka loo ogolaada ayaga ardu shaam ka sokana idinkuma arki karo uri nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaga yaa ballantii ka baxa waay ilaaha markaas haziima ayaa ilaahay ku riday waa la jabshay marka fasa'aluu rasuulallahi waxay weydiiseen sala allahu alayhi wasalam an yujliyahum nabiga inuu raro wayakufa can dimaa'ihim dhiigoodana oo nabiga ka joogsado wa anna lahum iyo inay ayaga u sugnaatay maa ayi ladii kii xamalat ilibilu geelu ay qaadaan oo min amwaalihim maalkooda xaggiisa ay ka qaadaan inay u sugnaatane sidaasna way macnaha ka codsadeen ilaa aalata alxarbi hubkii lagu dagaalamayo mahane taas looma ogola waa la ka tagaa la yidhi ayaga wixii seefo ahaa wixii markaasi gamuun iyo leeb iyo wax allaale wixii la isticmaalayay waa laga wada qaaday eebooyinkii kulli waa laga qaada waay fa facala nabiga marka codsigaas waa sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma uusan laynin intaasna nabiga waa u aqbalay macnaha hantidoodii badneedna waa laga reebtay wasaara alyahuudu marka yahuudi waxay ahaadeen yukharibuuna buyuutahum ama yukhribuuna dheh sida labada riwaayo aayadda qur-aanka
ay ahayd. wasaara alyahuuduna waxay ahaayeen yukharibuuna buyuutahum guryahooda inay kharibayaan biaydihim gacmahooda ay ku kharibayaan. macnaha yahuudi markii magaaladii laga adkaaday ee qaxid arrintii gaartay guryahay deganaayeen waxay kula dhaqaaqeen inay jajabiyaan guryihii. waxay saa u sameynayaan dadka idinka dambeeyaysan guryahan ku intifaacsan ayay u sameynayaan. ama waxay kale leeyihiin culimada tafsiirka waa ka aayadda qur-aanka ay dhehaysa ma ogtahay yukharibuuna buyuutahum biaydihim wa aydi lmu'miniina. marka tiirarka ugu dheerdheer iyo waxyaabahaasna way horay u qaadanayeen si markaas meeshay u socdaan arda saxara ay u socdaan ee dhismihii haddana wixii laga isticmaali karo ay usii isticmaalaan. mu'miniinta laftigoodana waxaa layihi guryihii ayagana kharibaad kula dhaqaaqeen, guryihii yahuudi ay jajabinaayeen. waxay u jajabaayeen mu'miniintana waxay ahayd si micnaha nin yahuuda uusan guryahan ugu gamban oo barxad cad laysla soo istaago eese yahuudda ugu dhuuman guryaha. saasaa micnaha ay u kharibayeen. markaasaa qof kastoo muslima asagana guriga wuxuu ka fuji karo ayuu ka fujinaya. muslimiinta dantooda ma aha guryo ma rabaan ayaga mugta inay un maaragtay nimankan lugooyada ah islaamku uu ka dhaqaaqi la-yahay in meesha laga saaro. taasaa muhiim u ah, waa mooye hantidoon ma ah. saasaa marka ilaahay wuxuu u yiri yukharibuuna buyuutahum biaydihim wa aydi lmu'miniina. marka wasaara alyahuudu waxay ahaadeen yukharibuuna buyuutahum inay kharibaayaan biaydihim gacmahooda ay ku kharibayaan kay laa yaskunahaa si aysan u degin almuslimuuna muslimiinta. saasay u yeelaayeen. walamaa saara alyahuudu yahuudda markay socdeen oo qaxi ay u bilowday nazala bacduhum qaarkood bikhaybara meesha khaybara la yihahda ayuu degay qaarkood. wa minhum waxaa kamid a kuwa khaybara degay akaabiruhum kuwooda ugu waaweynaa xuyay bnu akhdab ninka la yidhaahdo iyo wasalaamu bni abilxuqayqi ayaa kamid a. waa markaas. wa minhum waxaa kaloo kamid a man duul saara socday ilaa adricaatin meesha adricaad la yidhaahdo u socday. waa meel magaceed adricaadkan oo bishaami adricaadkaasoo bishaami fi shaami shaam dhexdeeda ahaata wa waa meesha dhulka urdun halkaas waaye. markaas wa aslama waxaa islaama minhum yahuudda xaggooda ithnaani laba nin ayaa ka islaameen. yahuuddu waa dad aada islaamka micnaha ugu ad adag. micnaha waxaan dhihi rabay diintooda yahuudnimada ugu ad adagoo islaam yahuud soo islaamaya arki maysid caalamka, waa yaryahay. laba keliya kasoo islaamtay, boqolaal nimayna ahaayeen markaas. laba keliya ayaa kasoo islaamtay. yaamiinu ayaa kasoo islaamay ibnu camrin iyo wa abu sacdin ibnu wahbin, labadaa nimaa kasoo islaamta waay. walam yukhamis rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ma shan meeloodinin maa ayiladii kii ukhida la qaaday min bani nadiiri bani nadiir hantidii laga qaaday nabiga ma shan meeloodinin. macnaha shan meel uma qaybin. macnaha saasaa laga wadaa. sababtuu nabiga shan ugu qeybin waaye maxay tahay? fa inahu ay mimaa ukhida min bani nadiir waxa reer bani nadiir laga qaaday fay-un fay u ahaa. waa macnaha qaniimo ma ahayn. wa hunaaka farqun bayna alghaniimati waalfay-i, shaqo iskuma laha. haniima waxaa la yidhaha waxay markaa muslimiinta iyo gaalada iyo ciidamadooda intay isla kulmaan markii gaaladii saa lagu jebiyo oo maaragtay dagaal oo qalab loo soo qaatay oo oor loo soo kiciyey oo rag ku dhammaaday markii saa inta looga adkaado wixii laga helo haniima la yidhahda. laakiin fay waxaa waaye waa dad ayaga markaasi cararay oo hantidoodii ka cararay oo iyagoon oor loo kicin farda loo kicin rucbi inta ilaahay ku riday iska cararay wixii laga qaada fay a la yidhaha. markaasi saasay ku kala duwan yihin. waa kan markaa isagaaba kusii sifaynaya. fa inahu ay mimaa ukhida min bani nadiir fay-un ayuu ahaa lam yuujaf lama gulfin calayhi calaa maa ukhida min bani nadiir waxaa laga qaaday bikhaylin farda looma gulfin walaa rikaabin gaadiid kalena looma gulfin. waa markaas waa meesha ilaahay uu leeyahay famaa awjaftum calayhi min khaylin
ولا ركاب سمعت إلى وحنا مركي تكنيك أنت الله كعشو إيو أور إيو وقلا مركز إيو مركز ذاتك إسكع الرأيو عم بدقال إيو حبا موجين واكل دوانتها مركز ومثل هذا كان أو كلانه أو هذا ده محله إشارة ومثل هذا أي مما أخذ من بني النضير وحلقة قاضي أو كله يكون وحو هذا لمعدات الحرب دقالك وحيابها اللو الدياريي أي الله استعمالها معناها سانديه اللو دقال ملها أي الله استعمالها أي أصبنا هذا ومعناه ومثل هذا أي مما أخذ من بني النضير وحلقة قاضي أو كله يكون وحو هذا لمعدات الحرب دقالك وحيابها اللو دياريي أيو أسقناده إيه وللرسول رسولك أسقناده صلى الله عليه وسلم يدعم النبي وقودنا يا منه مما أخذ من بني النضير أرنكاس أهله أهل كيسو النبي وقايبنا يا أو كقودنا يا ولذي القربى قرابتك صاحب كان وكقودنا يا واليتامى أوامك وكقودنا يا إيه والمساكين مساكين إيه وابن السبيل مسافرين تجدك معناها مرايا saas waay markaas marka khumuska marka macnaha waxa waaye wixii inta 5 meel loo qaybiyo 5 meelood meel kamid ah hadana 5 loo sii qaybiyo waa sidaas marka khumuskan macnaha nabi hadda wuxuu noo sheegay hadda sheekha inaan la takhmiisin oo 5 meelood aan loo qaybin ayuu sheegay waana sida ay qabaan markaasi fuqahada madaahibta macnaha مالكية إيو مركزي حنفية إيو إمام أحمد بن حنبل سيد عصي قبان إنان لشل ميلودينين وصاص لو قيبينين بينما إمام الشافعي يقول لي هاي شن أيا لو قيبين يا سيد آيات القرآن كو إيش يجيسو وهذا إنه صوصعته كما قال تعالى سيد إلهي أويري في سورة الحشر إلهي أوكيري ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية ما أفاء الله ما أي الذي كي أفاء الله إلهي أسوع عليه على رسوله رسول كيس أكسوع عليه من أهل القرى تولوين كي أهل كود حقه ذن أكسوع عليه فلله إلهي أسقناته وللرسول الرسول كي أسقناته ومال كفيئها ولذي القربى قرابتك وصاحبك أي أسقناته واليتامى أقومك أسقناته والمساكين مساكينتي أسقناته وابن السبيل جدك إنكيسي أسقناته ومسافرك سيداسا إلهي أقيبيه فلله وللرسول أو هلأ ولذي القربى لبو واليتامى سدح والمساكين وابن السبيل ساسوا يعني إلهي رسول كيسي هلك حساب مركز أساس فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مركز أساس محاساس لو يلا مركز أوصال لو قيبيه كي لا يكون هو ما قاسسي أوصن أو أهانين دولة أي متداولا مد كله وريجيسته بين الأغنياء تاجرين لحظة دكوا وريجيسته أغنياء داسوا منكم إنك كم دوا تاسع الذي الدنيا هو إنه تاجر كلا أوليبه لما ربوا وحال ربا إن السيو مارتي ذاتك قرابة أو باهن مساكين أغونتا سافرين إن السيو سيدا صار ربوا لكن ما نكان غني قال نكالو إنه سيسيو dada kuwa waxa laga sheegay zakada markay dhiibayaan xoolaaleyda ninka markuu zakada dhiibay hal kale xoolo haysto kulay shiiha inuu zakada asaga siiyo ka go'do kaasna inuu zakadiisa asagana oo asaga ku soo celiyo miskiin markaas khadku ka baxa mugti kay la yakuna dawlatan baynal aqniyaa ay noqonay marka taas oo kale waa la gooyay markaas lama rabo mana uga baxaysa qofkii zakada markaas hadoo qof qaniyo oo siinayo oo ogyahay hadan مركا فأعطى عليه الصلاة والسلام رسولك مركا وحوسي من هذا الفيء أنا وكان حقي سنبي وحوكسي فقراء مهاجرين فقراء ذودي الذين كواسوا أخرجوا من ديارهم معناها داره ذي لغسوا صاري وأموالهم حوله ذي لغسوا صاروا وردوا
muhaajiriin ayagana waa celiyeen liikhwaanihim walaalahoodii min al ansaari ansaar ah maa ay ladii kii ayay u celsheen maagaasoo kaanuu ay ahaadeen qad akhaduuhu maaga inay ka qaateen minhum micnaha ansaar xaggooda ay ka qaateen ayaama hijratihim maalmihii ay soo hijroodeen waatay ansaar inta soo dhaweeyeen hantidoodii ay la wadaajiyeen oo xataa ay yidhaahdeen kii laba xaasle xaaskaygan kuu fura heerkaas si fiican ay usoo dhaweeyeen marka wixii markii fay-an nabiga oo muhaajiriintii siiyey walaalood ansaar ayay u celsheen waay wa akhada calayhi salaatu wasalaam rasuulka marka wuxuu qaatay ardan dhul ayuu nabiga qaatay ardadaasoo yasracuhaa nabiga uu abuuraya waay oo wayadakhiru uu kaydaysanaya minhaa arlada xaggeeda uu ka kaydaysanaya nabiga quuta ahlihi ahalkiisa wax ay beeshaan caaman sanad ayuu nabiga ka qaata waay ilaa nabiga fay-a waxa uu lahaa tasaruf kaamila ayuu nabiga ku lahaa wixii fay-a inuu markaasi sidoo doono oo ka yeelo wallahu subxaanahu watacaala aclamu wa axkam halkaa iska joogo